dhalinyaro ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta. Filimkeennu wuxuu ku saabsan yahay dil xun oo ka dhacay Hindiya. Sheekada filimkeennana waxay ku bilaabanaysaa habeen uu roob da'ayay. Xilligaana waxaan aragnaa nin dhalinyaro ah oo jaakad xiran. Isla markiina ninka wuxuu qolkiisa ku garaacay Akash, kaasoo xilligaa joogay gurigiisa. Markuu albaabka ka furay oo qofkaa arkana, wuu soo weeraray asaga. Intaa dabadeedna ninka wuxuu gudaha u soo galay guriga, asagoo ciirsanaya wiilka. Xilligaana Akash wuxuu isku dayay inuu ka baxsado ninka, laakiin albaabka ayuu soo xirtay. Akashna markuu arrintaa arkay wuxuu iska celiyay ninka, laakiin ninka wuu iska difaacay. Intaa kadibna Akash wuxuu u baxsaday dhanka sare ee guriga, laakiin ninka ayaa ka daba tagay, wuxuuna bilaabay inuu garaaco Akash markuu qabtay. Sidoo kalena kashwiito ayuu wiilka in badan ku dhuftay asaga. Ugu dambayntiina sidaa ayuu ku dhintay Akash. Intaa dabadeedna ninka markuu daaqada tagay, wuxuu arkay dad meesha ku ciyaaraya. Intuu meesha joogana dhoob daaqada saarnaa ayaa gacantiisa ku dhacday, balse intuusan dhulka ku dhicin ayuu qabtay. meeshaana dilaagu wuxuu kaga tegay farihiisa. Intaa kadibna wuxuu isaga baxsaday meesha. Muddo kadibna wuxuu gubay cadaymihii oo dhan oo ay ku jirto jaakadii uu xidhnaa si aan loo fahmin asaga. Maalintii xigtana boolisku waxay yimaadeen goobtii uu dilka ka dhacay si ay u baaraan kiiskan. wax yar kadibna Shifani markay baaritaankeeda bilowday, waxay ogaatay dilaagan inuu yahay mid aqli badan. xilligaana mid ka mid ah askarta ayaa sheegay dilkan inay geysteen laba tuug. markay wiilkan dileenna meeshaan ayay isaga carareen ayaga. dhulkana maadaama uu qoyan yahay roob ayaa ku da'ay. isla markiina Shifani waxay ayaga weydiisay aawa galoofisadiinii, ma sidaan ayaa wax ku baaraysaan adinka, si qaldan ayaana ku baaraysaan kiiskan. intaa dabadeedna Shifani waxay bilowday inay saadaaliso siduu u dhacay dilkan, iyadoo sheegaysa gacan-ku-dhiigluhu inuu ka soo galay albaabka weyn. isla markiina dhibbanuhu wuxuu isku dayay inuu u fakado dabaqa sare, laakiin dilaaga ayaa ka daba tagay oo meeshaa ku dilay asaga. intaa kadibna meydkiisa wuxuu ku riday waaskada, sidoo kalena biyo ayuu ku shubay meeshaan si uu u baabi'iyo cadaymaha oo dhan. markuu baxsanayana daaqadda ayuu ka booday. intaa dabadeedna beerta guriga waxay ku arkeen raadka ninka. meeshaana waxay ka ogaadeen dilaaga inuu yahay hal qof. daaqaddana xilligaa waxaa yeelay dilaaga farihiisa, laakiin nasiib darro ma aysan helin ayaga. intaa kadibna meesha waxaa yimid taliya Yaadoof. isla markiina Shifani waxay bilowday inay u sharaxdo dhaawacyada ku yaala qoorta Akash. intay baaritaankooda wadeenna waxay ogaadeen qalabka dilkan lagu geystay inuusan midi ahayn, balse uu yahay kashwiito. dilaaganna waa mid aqli badan, wax raadana kamuusan tagin asaga. intaa kadibna taliyaheeda waxay u sheegtay inay gacanta ku soo dhigi doonto dilaagaas qiimo kastaba ha ku kacdee. intaa dabadeedna taliyaha wuxuu ayada u sheegay dilkan in loo qorsheeyay si heer sare ah. isla markiina taliyaha Shifani wuxuu u sheegay boolisku inaysan ku shaqaynin mala'awaal, sidaa darteedna waa inaad shaqaysaa oo aa caddayn buuxda keentaa maadaama lagu xil saaray kiiskan. intaa kadibna Shifani waxay su'aalo weydiisay gabar jaariyad ka ahayd guriga Akash. gabadhaana waxay ayada u sheegtay inay meesha isaga tagtay intuusan dilkaa dhicin ka hor. xilligaana Akash wuxuu daawanaya TV-ga, sidoo kalena wiilka wuxuu ahaa qof wanaagsan, laakiin ma uusan soo dhexgeli jirin dadka. intaa dabadeedna waxay la kulantay Akash walaashii, taasoo hadda ka murugaysan dhimashada walaalkeed. gabadhaana Shifani waxay u sheegtay hooyadood iyo aabbahood inay horay uga dhinteen ayaga. walaalkayna 4 bilood ka hor ayuu ka yimid dalka Maraykanka arrimo furin awgeed. xilligaana wuxuu doonayay inuu dego Hindiya, wax cadowana ma uusan lahayn asaga, laakiin akoonka qoyskeenna wuxuu kala baxay 1 milyan oo rubi si uu ganacsi ugu bilowdo asaga. guriga Akashna markii lacagta laga raadiyay waa laga xaday. markii xigtana Shifani waxay la kulantay waardiyaha, waxayna wax ka weydiisay arrinta dilka. isla markiina wuxuu u sheegay habeenka inuu arkay koox dhalinyaro ah oo ku ciyaaraysa guriga Akash hortiisa, laakiin waan kala ciiriyay isla markiiba. xilligaana waxay ahayd xilli dambe oo habeenka ah. intaa dabadeedna Shifani waxay bilowday inay su'aalo weydiisay dhammaan deriska Akash si ay wax uga ogaato dilkan, laakiin deriska qaarkood waxay u sheegeen xilligaa inay safar ku maqnaayeen, halka qaarka kalena ay u sheegeen xilliga uu dilka dhacaya inay hurdayeen. deriska qaarkoodna maba aysan garanayn Akash, sababtoo ah wuu ku cusbaa xaafadan. intay waraysigeeda wadana wiil ayaa u sheegay habeenka inuu joogay dabaq u dhow meesha, laakiin ma arkin arrinta, sababtoo ah habeenka waxay ahayd dhalashada saaxiibaday, iyada oo keliya ayaana ku mashquulsanaa aniga. intaa meesha joogana aniga iyo saaxiibaday sawirro ayaan wada galnay. Shifanina markii sawirrada la tusay way yaabtay, sababtoo ah meesha waxay ka aragtay dilaaga. meel kalena tasnaa gaashaan la Yaadoof wuxuu u sheegay Shifani inaysan weli keenin wax caddayna. intay wada hadlayeenna meeshaan waxaa timi Shifani, isla markiina taliyaheeda waxay tustay sawir uu ka muuqday dilaaga. Yaadoofna markuu si fiican dilaaga u fiiriyey, wuxuu ogaaday inuu Arjun yahay. si degdegana labadooda wuxuu ugu amray inay soo xidhaan ninka. raadin kadibna Shifani waxay gacanta ku soo dhigtay Arjun, xabsiga ayaana loo taxaabay asaga. Arjunna xilligaa wuxuu garan waayay sababta loo soo xiray asaga. muddo kadib markuu la kulmay taliyaha booliska
booliskana wuxuu weydiiyey sababtuu u soo xiray asaga maadaama uusan ogeyn dembi uu galay. laakiin Yadoof ayaa asaga weydiiyey inuu garanayo Akaash, isla markiina Arjun wuxuu ugu jawaabay maya. intaa dabadeedna taliyaha wuxuu asaga weydiiyey meesha uu joogay habeenkii uu dembiga dhacayay. Arjunna wuxuu u sheegay inuu joogay meel xaflada, sidoo kalena xilliga aad baan u daalanaa aniga. laakiin Yadoof ayaa asaga ku yidhi 4 saac iyo bar ayaa ka tagtay xafladda, nusu saac ayaana gurigaaga ku tagi kartaa, laakiin kaamirooyinka waxay adiga ku duubeen adigoo 8 saac oo habeennimo tagaaya gurigaaga. intaa kadibna Arjun wuxuu sheegay asagoo waddada maraya inuu gaarigiisa ka banjaray, meeshaana wax garaasha kamaysan dhoweyn, roob xooggan ayaana da'ayay. qof kasta oo aan caawinaad weydiistana iimuusan istaagayn asaga, maadaama aan muddo meeshaa joogana sidaa ayaan ku daahay aniga. 2 saacadood kadibna tagsi ayaa ii yimi, wuuna i caawiyey, sidaa ayaana anigoo daahay ku tegay gurigayga. intaa dabadeedna taliyaha wuxuu tusay sawirka balakoonka looga qaaday asagoo wax dilaayo Arjun. intaa kadibna Yadoof wuxuu u sheegay wax kasta inay ku cad yihiin asaga, sidaa darteedna cimrigaaga inta ka dhiman xabsi ayaa ku qaadanaysaa adiga. markii laga tegay Arjunna waxaa la soo wacay sargaalka, waxaana loo sheegay inuusan wax dembiya lahayn asaga. laakiin waxaa la yaab lahayd qaybta kale ee saldhigga in la keenay nin kale oo u eg Arjun, waxaana la sheegay in la soo qabtay asagoo cabsan oo gaari wada. boolisku markay isku dayeen inay qabtaanna wuu dhibaateeyey asaga. Rooney iyo Arjunna waxay ahaayeen 2 qof oo aad isugu eg, booliskuna hadda waxay fahmi waayeen dembiilaha dhabta ah. 3 bilood ka hor markaan ku laabannana xilligaa waxaan aragnaa Arjun oo la taagan saaxiibkii, waxayna ka wada hadlayeen gabar qurux badan oo la yidhaahdo Shifani. gabadhaana waxay ka shaqayn jirtay meesha uu ka shaqeeyo Arjun. Arjunna mar walba uu gabadhaa arko lamuusan hadli jirin xishood awgii, isha oo keliya ayuuna ka fiirin jiray. muddo kadibna maalin maalmaha ka mida wuxuu ka codsaday inay kafee u raacdo si ay isku soo bartaan, laakiin Shifani waxay ku tiri su'aashaadu way qaldan tahay, wayna ka tagtay asaga. maalin kastana Arjun arrintaa ayuu ka codsan jiray gabadha, laakiin kamaysan aqbali jirin. mar walbana waxay ugu jawaabi jirtay su'aashaadu way qaldan tahay. maadaama uu ujeeddadeeda fahmi waayana wuxuu isweydiiyey cuntada ay xiisayso ayada. muddo kadibna wuxuu weydiistay inay shaax la soo cabto asaga, isla markiina waxay ka aqbashay dalabkiisa ayadoo u sheegaysa inaysan jeclayn kafeega. markay wada kulmeenna Arjun wuxuu bilaabay inuu isbaro gabadha asagoo u sheegaya inuu injineer yahay, laakiin Shifani waxay u sheegtay inay garanayso wax kasta oo ku saabsan asaga. xidhiirkoodana xilligaa wuxuu ku bilowday si qurux badan, ayagoo marba marka ka dambaysa isfahmayay ilaa ay noqdeen 2 qof oo aad isugu dhow. mar walba ayayna wada hadli jireen, sidoo kalena meel kasta ayay isku raaci jireen ayaga. muuqaalkeena xigana waxaan ogaanaynaa Rooney inuu yahay tuug xada ATM-yada, haddana wuxuu la kulmay burcad kale si uu uga iibiyo mashiin uu soo xaday, laakiin burcadka wuxuu u sheegay inuusan u baahnayn mashiinka. intaa kadibna Rooney burcadka wuxuu u sheegay mashiinkan inay ku jiraan lacag badan, isla markiina burcadkii kale wuxuu ogolaaday heshiiskooda. sidoo kalena wuxuu u sheegay inuu yaqaano nin furi kara mashiinka, laakiin lacagta ka soo baxda 50 iyo 50 ayaa u kala qaadanaynaa. Rooneyna wuxuu iska diiday arrinta asagoo kule doqon miyaa ii malaysaa, adigoo lacag isiinina kaagama tagaayo mashiinkayga. intaa kadibna ninkaas burcadka ah qayb ka mida lacagta ayuu u hormariyey Rooney. muddo kadibna ninkaa markuu furay mashiinka wuxuu ogaaday inuu maran yahay, goobtaanna wuxuu ka ogaaday in la khiyaanay asaga. markuu Rooney iyo saaxiibkii uu wacana way ku maadaysteen ayagoo u sheegaya inuu doqon yahay. intaa kadibna Rooney iyo saaxiibkii waxay ku raaxaysteen lacagta ayagoo aadaya kasiimo VIP ah. maalintii xigtana Arjun saaxiibadii wuxuu geeyay dabaq uu dhisayey, wuxuuna u sheegay gurigan inuu asaga dhisay. mashruucaanna waa midkaygii koowaad, dayn badan iyo dadaal badan ayaana iga galay si aan u hirgeliyo mashruucaygan. Shifanina waxay ku faraxday arrinta, sidoo kalena waxay dhiirigelisay asaga ayadoo u sheegaysa dhib badan kadib inuu ayada xitaa gacanta ku dhigay. intaa dabadeedna waxay uga sheekaysay taariikh nololeedkeeda. meel kalena habeenkii markii la gaaray waxaan aragnaa Rooney oo la fadhiya saaxiibkii Shadi, xilligaana wuu murugaysnaa wiilka. sidoo kalena Rooney wuxuu u sheegay dukaankan inuu ka dhaxlay aabihii, laakiin booliska ayaa iga xiray maadaama aan iimin jiray taleefannada la soo xaday, sababtoo ah habeenada ka mida waxaan la kulmay nin boolis ah. markuu xogteyda ogaadana dukaanka ayuu uga xiray. kiiskan hadduu hadda igu caddaadana waxaa laygu xukumi doonaa 4 sano. Rooneyna intaa kadib saaxiibkii wuxuu u sheegay inuu xallin doono arrinta. maalintii xigtana Rooney markuu la kulmay qareennada kiiskan wuxuu u sheegay saaxiibkii inuusan wax dembiya lahayn, sababtoo ah baqaarkiisa lagama helin wax sharci darra. haddana waxaa ku qasbantihiin inaad kiiskan caddaysaan si aad u badbaadsataan sumcaddiinna. markay qareennada dib u eegeen faylka kiiskanna waxay ogaadeen wax kaste. meel kalena Arjun xilligaa wuxuu la kulmay Shifani, waxayna u sheegtay inay ka maqnaanayso 3 isbuuc maadaama ay aadayso Dubai si ay uga qayb gasho sanad guurada hooyadeed. goob kalena Rooney iyo saaxiibkii intay gaariga wada saarnaayeen, saaxiibkii wuxuu u mahad celiyey asaga maadaama uu ka caawiyey kiiskiisa. wax yar kadibna shil ayay galeen maadaama ay cabsanaayeen ayaga. markii xigtana waxaan
waxaan aragnaa Rooney uu afduubtay burcadkii uu hore uga xaday lacagta. xilligaana Rooney wuxuu arkay saaxiibkii oo la dhibaataynayo, aad buuna uga xanaaqay arrinta sababtoo ah burcadkan wuxuu u sheegay hadduu lacagtiisa siin waayo inuu dili doono saaxiibkii, sidoo kalena waxaan iibin doonaa xibnaha muhiimka ee jirka saaxiibka si aan uga helo lacag badan. intaa kadibna Rooney wuxuu mid u garaacay burcadda si uu u badbaadiyo saaxiibkii. intuu dagaalkaa wadana wuxuu sawirtay in la dilayo saaxiibkii, laakiin wuxuu ogaaday waxaanoo dhan inay mala awaal yihiin sababtoo ah maskaxdiisa ayaa sawiratay intuu la dagaalayo burcadda. intaa kadibna wakhti ayaa loogu daray si ay u bixiyaan lacagta, laakiin ma aysan garanayn meelay ka keenaan lacagta. markii xigtana Arjun Shifaani wuxuu geeyey eelaboorka si uu u macsalaameeyo ayada. markuu la kulmana wuxuu u sheegay inuu doonayo inuu guursado ayada. Shifaanina markay hadalkaa maqashay way faraxday, kadibna way baxday ayada. habeenkii markii la gaarana Rooney kasiimada ayuu qamaar ku ciyaarayay. arrintaana waxay keentay in laga cuno lacagtii uu haystay oo dhan. markay kasiimada ka soo baxeenna intay waddada marayeen waxaa la afduubtay saaxiibkii Shaadi. Rooneyna markuu saaxiibkii waayey waa la soo wacay, isla markiina waxaa loo sheegay inuu haysto laba beri. muddadaa haddaad lacagtayda igu siin weysina waxaan dilayaa saaxiibka, sidoo kalena keliyihiisa ayaan iibsanayaa aniga. intaa kadibna Rooney wuxuu wacay dad badan si uu lacag dayna u weydiisto asaga, laakiin qof kasta ayaa ka diiday arrinta sababtoo ah dadku waxay ogaayeen inuu dhib badan yahay asaga. meel kalena Arjun iyo asxaabtiisa xaflad ayay dhiganayeen maadaama ay ku guulaysteen mashruucooda. laakiin Arjun xoogaa markuu meeshaa joogay saaxiibkii wuxuu u sheegay inuu baxaayo sababtoo aad baan u daalanahay aniga. intaa kadibna Arjun wuxuu fuulay gaarigiisa si uu uga tago meeshaan. xilligaana wuxuu u muuqday inuu aad u xanaaqsan yahay asaga. intaa kadibna waxaa dhacay dilka loo geystay Akaash. waxaana ogaanaynaa dilka inuu geystay Arjun iyo Rooney midkood, laakiin wax caddayna laguma haynin ayaga. markaan ku soo laabanno waqti xaadirkaanna gaashaanla Yaadoof iyo Shifaana waxay ku wareereen kiiskan sababtoo ah waxay garan waayeen labadan wiil midka dilaaga saxda ah. intaa kadibna boolisku waxay baaritaan ku sameeyeen Rooney ayagoo garaacaya asaga, isla markiina askarta wuxuu u sheegay inay garaacista ka daayaan asaga maadaama ay garaacayaan qof aan dembi lahayn. haddii aad garaacista iga dayn weysaanna maxkamadda ayaan idinla tiigsanayaa, dowladduna aniga magdhow ayay isiinaysaa. intaa kadibna askarta maadaama ay abukaato u maleeyeen way ka baqeen asaga. meel kalena Yaadoof xilligaa wuxuu la hadlay qareen ay saaxiibo ahaayeen, wuxuuna u sheegay inuu baarayo kiis aad u adag, mana awoodo labadan wiil midkood inaan xiro waayo caddayn buuxda kuma hayo ayaga. intaa kadibna wuxuu tusay labada wiil. qareenkana markuu arrintan arkay aad buu u yaabay, sidoo kalena Yaadoof xilligaa wuxuu ka codsaday inuu siiyo dhowr maalmood si uu u xalliyo kiiskan. muddadaana adiga waxaan kaa rabaa inay ii keento caddayn kasta oo ku saabsan kiiskan si aan u horgeeyo maxkamadda. 2 maalmood oo keliya ayaana haysanaa annaga, haddii wax lagu waayo Arjunna waa la sii daynayaa asaga. intaa kadibna boolisku waxay baaritaan ku sameeyeen wiilasha. markay dharka ka siibeenna dhaawac isku mid ayaa ku yaalay, sidaa darteedna waxay ku wareereen dilaaga dhabta. wax yar kadibna Shifaani waxay wicitaan ka heshay dhakhtarka, wuxuuna u sheegay cidiyaha Akaash inuu ka helay tinta dilaaga. haddii aan eedo tintaana waxaan ka ogaan karnaa dilaaga dhabta ah. muddo kadibna deriska Akaash mar kale waxaa la weydiiyey inay yaqaanaan Arjun iyo Rooney, laakiin waxay sheegeen inaysan garanayn. intaa kadibna Shaadi ayay wareysteen, wuxuuna sheegay saaxiibkiis inaysan macquul ahayn inuu dilaa noqdo asaga. askarigii xilligaa la joogay Shifaani wuxuu sheegay Rooney inuu burcad yahay asaga. muddo kadibna Shifaani markay dhammaysatay baaritaankeeda waxay xaqiiqsatay Arjun inuu run sheegayo, sidoo kalena uusan wax dembiya lahayn asaga. Yaadoofna markay la kulmeen wuxuu ku qayliyay ayaga sababtoo ah weli ma aysan xallin kiiskan. maadaama ay Shifaani xallin weyse kiiskana tasliin ayuu u xilsaaray kiiskan. intaa kadibna sargaalka wuxuu bilaabay inuu garaaco Rooney iyo Arjun, laakiin wax caddayna kamuusan helin ayaga. intaa kadibna Yaadoof ayaa meeshaa yimi, wuxuuna bilaabay inuu garaaco Arjun. goob kalena Shifaani askariga waxay weydiisay waxa ka dhaxeeya Arjun iyo Yaadoof, isla markiina wuxuu u sheegay Yaadoof gabadhiisa inuu wiil la fakaday 8 sano ka hor. intay baxsanayeenna waxa ayaga garab siiyay Arjun. markuu isku dayay inuu dacweeyana wax kasta ayuu ku guuldaraystay asaga. maadaama uu maanta fursad ku helay Arjunna lagama yaabo inuu sii daayo asaga. tan iyo xilligaana Yaadoof wuxuu aaminsanaa Arjun inuu gabadhiisa ka fogeeyo asaga, haddana wuxuu doonayaa inuu ka aarguto asaga. intaa kadibna dhakhtarka ayaa soo wacay Shifaani, wuxuuna u sheegay inuu helay gacan ku dhiiglaha, laakiin Shifaani wuxuu u sheegay inay 2 qof yihiin, sidaa darteedna waxay ku wareertay arrinta. intaa dabadeedna wuxuu ka codsaday inay si degdeg ah ugu timaado laabka. meel kalena Arjun wuxuu iska dhigay qof suuxsan. markuu askariga u soo galana wuu garaacay qolka ayuuna ku soo xiray asaga. intaa kadibna si degdeg ah ayuu meesha isaga baxsaday. wax yar kadibna si lama filaana waxaa isku arkay Arjun iyo Rooney, isla markiina waxay bilaabeen inay isdagaalaan ayaga. wiilashaana hadda waxay u wada dhaqmayeen sidii dad is yaqaanay weligood. meel kalena Shifaani
dhakhtarka wuxuu u sheegay DNA-da labadan qof boqolkiiba boqol inay isleedahay, taasina waxay ka dhigan tahay labadan qof inay yihiin walaalo mataano ah. in la fahmo dilaaga dhabtaana aad bay u adag tahay hadda. intaa dabadeedna Shifani iyo kooxdeeda mar kale waxay tageen goobtii uu dembiga ka dhacay si ay fara meesha uga baaraan ayaga. laakiin intay baaritaankooda wadeen, sargaal nacasa ayaa tuuray waalkii saarnaa daaqadda. meel kalena Arjun iyo Rooney waxay bilaabeen inay ka sheekeeyaan qisadooda, waxayna sheegeen run ahaantii inay mataano yihiin ayaga. markaan yaraynna waxaan ku nooleen nolol farxad leh. muddo kadibna hooyadeen iyo aabbaheen way kala tageen, sababtoo ah hooyadeen mar walba waxay jecleyd inay ciyaarto qamaarka, wax kastana waxay u samaynaysay sida uga farxin lahayd carruurteeda. intaa kadibna aabbaheen wuxuu ku amray inay iska dayso qamaarka, laakiin way ka diiday arrinta maadaama uu aabbaheen hooyadeen ku dacweeyey maxkamaddana waa la ceyriyey ayada maadaama ay qaadi weysay mas-uuliyadda carruurteeda. muddo kadibna hooyadood ayaa dhimatay maadaama uu aabbaha ayada ka ceyriyey gurigana. Rooney markuu waayo hooyadii wuxuu nacayb daran u qaaday aabbihii asagoo ku eedeynaya dhimashada hooyadii. maalintaa kadibna Arjun iyo Rooney dagaalkooda ayaa batay, mar walbana way isdagaali jireen ayaga. intaa kadibna labadooda maadaama ay maskaxiyan u jiranaayeen waxaa la geeyey isbitaalka dhimirka. haddana Arjun intii la wareysanayo wuxuu sheegay Rooney inuu mar walba ka masayri jiray asaga maadaama uu mar walba asaga ammaani jiray aabbahu. sanado badan kadibna wuxuu igu yimi gurigayga, xilligaana wuxuu iga qaatay faraanti qaaliya, sidoo kalena mar walba ayuu ii hanjabi jiray asaga. laakiin Rooney wuxuu sheegay inaysan jirin maxkamad aqbalaysa. Rooney ayaa raba inuu dilo walaalkii. 4 maalmood kadibna waxaa ogaan doontaan dilaaga dhabta ah. intaa kadibna Shifani waxay u tagtay Rooney, waxbayna dhegta ugu sheegtay, kadibna way ka tagtay asaga. intaa dabadeedna waxay la kulantay Yaado ayadoo weydiinaysa sababta uu mar walba dembiga dusha uga saarayo Arjun. muddo kadibna waxay ogaatay Rooney inuu u baahnaa 1 milyan oo rubi si uu u badbaadiyo saaxiibkii. waqti kadibna wuxuu awooday inuu bixiyo lacagta. Rooneyna markii wax laga weydiiyo meesha uu ka keenay lacagta, wuxuu sheegay inuu ka soo xaday dukaan lagu iibiyo dahabka. isla markiina Yaado Rooney wuxuu ka codsaday inuu qirto dembigiisa, laakiin wuxuu ka diiday arrinta. sidoo kalena dhab ahaantii wuxuu u sheegay, lacagta anigu waxaan ka helay qamaar aan ciyaaray, adigana waxba igama qaadi karti aniga. Yaadofna markuu arrintaa baaray wuxuu ogaaday wax kaste. muddo kadibna Yaadof markuu saldhiga ku soo laabtay wuxuu la kulmay Ratika, waxayna u sheegtay Arjun inuu lacag siiyo ayada. sidoo kalena booliska waxay la kulmeen tagsiilihii caawiye Arjun habeenkii uu dilka dhacayay. booliskuna aad bay ugu wareereen kiiska. muddo kadibna maalintii maxkamadda, Arjun iyo Rooney maadaama labadoodaba lagu waayay wax dembi ah, garsooraha maxkamadda wuxuu go'aamiyey in la sii daayo ayaga maadaama hadda lagu waayay wax caddayna. dhowr isbuuc kadibna Shifani mar kale waxay gacanta ku dhigtay faylka kiiska ayadoo baaraysa. intaa kadibna waxay ogaatay Arjun saaxiibadii Jawani iyo Akash inay wax ka dhexeeyeen ayaga. markuu Akash isku dayay inuu xiriirkooda dib u soo celiyana, gabadhaa waxay u sheegtay hadda inay wax kala dhexeeyaan Arjun maadaama ay diidana cabitaanka ayuu wax ugu daray. markay miir beeshana wuu kufsaday, kadibna wuu dilay ayada. intaa dabadeedna Arjun asna wuxuu dilay Akash si uu ugu aargudo saaxiibadii. muddo kadibna Shifani waxay la kulantay dhakhtarkii uu horay u dhaawacay Arjun markuu yaraa asaga. dhakhtarkaana wuxuu u sheegay in kastoo ay labadaa wiil isdagaali jireen inay mar walba iscaawin jireen ayaga. Rooneyna mar walba wuxuu difaaci jiray walaalkii si aan loo xukumin asaga. ugu dambayntiina waxaan ogaanaynaa dilaaga dhabta inuu yahay Arjun. sidoo kalena Shifani waxay ogaatay Rooney inuusan wax dembiya lahayn asaga, balse uu wax kasta u samaynayo si uu u badbaadiyo walaalkii. sidoo kalena Shifani aniga ayaa ku qanciyey inay iga caawiso arrintan si dilka dusha la iiga saaro aniga. qorshahaana wuxuu ahaa midaan uga shaqeeya si heer sare ah. Rooneyna xilligaa wuxuu baabiiyey caddayn kasta oo ku saabsan kiiskan. meel kalena Shifani waxay ogaatay wax kaste. sidoo kalena Rooney walaalkii wuxuu u sheegay arrintan inuu u sameeyo hooyadii darteed maadaama ay ku tiri ilaali walaalka. filimkeennina meesha ayuu ku soo dhammaaday. haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, fadlan muuqaalkeenna like saar, sidoo kalena janalkeenna ku soo biiro subscribe. waa ku mahadsan tahay la joogistaada.